waxaa lagu raadiyaa risqiga oo lagu dalbaa silatul arham riximka oo la xariiriyo ayaa lagu raadiyaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima qofkii doonaya risqiga in loo waasiciyo waxa weeyaan cimrigiisana loo dheereeyo qofkaasi waxa weeyaan qaraabada ha xariiriyo riximka iyo qaraabada ha xariiriyo masaakiinta ha garab istaago dadka nacfi ha u lahaado weey qofku hadduu bulshada nacfi u leeyahay oo danta guud iyo khayrka kala qayb qaadanayo ilaahay wixiisana waa u barakaynaya risqigiisana ilaahay waa ugu waasicinaya wuuna helayaa meel uunan ka malaysanahay buu ka helaya ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحليه إن لله عبادا إلهي وحليه أضامه اختصهم بالنعم نعموين بإلهي سيئي أو كخاصية لي لنفع العباد سيئي أضامه أو أنفعان أي إلهي النعم يحوله يهانت إلهي أسي يقرهم فيها ما بذلوها إلهي النمعة أوسي وكل حسقيا وكل إلالنيا انت أي بحنا هيان فإذا منعوها نزعها منهم وتحولها إلى غيرهم هذا ديدان نمعة إلهي أوسي إني بحيان إلهي وكسيبيا وحون أوريتشنيا kuwa kale oo dadka ku anfaca waxa adigu aad haysatido ilaahay uu ku siiyay waa wax ilaahay dad badan uunan siinin ada ilaahay kugu khaas yeelay dad kooban baa ilaahay siiyay waxa ilaahay u siiyo xikmadahay waxa weeyaan baa nabigu yiri linafci alibad adoomada ina ku anfacdid waxa khayrka ina kaga shaqaysid oo adoomada kale ku anfacdid ilaahay baa ku dhiibay dhiib baa lagu yiri markaasaa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam inta ay nafcigaasi bixinahayaan ilaahay waa u koobahayaan waana ku sugaa yuqirruhum fiiha ma badaluha inta ay bixinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku dhex sugahaya faidaa manacuuha maalinkay diidaan maxaa ku imaanahaya nazacaha minhum ilaahay waa ka siibaya kuwa kaloo bixinahaya ilaahay u dhiibaya qof wax bixiya oo wax bixin oo bixinaya daraadeed faqri u noqday lama sheegin qof wax ilaaliyay oo ku bakhiilay oo ku guulaysto liimaan ku gaarayna lama sheegin bal u fiirso qofka wax ku bakhiilo wax haysta wixiisana ku bakhiila waajibaadkii uga bakhiila khayrkii iyo nafcigii uga madda uga bakhiila ilaahay agtiisa amaan kuma leh dadka agtoodana amaan kuma leh bal u fiirso qofka nacfiga dadka u leh ilaahay agtiisa amaan buu ku leeyahay dadka agtoodana wuxuu ku leeyahay amaan iyo khayr baa u taala maalin buuna u baxsanayaa xaaladiisu adag tahay khayrka uu la baxahayo marnaba ku qadimhayo aakhira intaan la gaarin adduunyada u baxsanaya imisa ilaahay ku caafiya dad anfacay fuqara ah oo masaakiin ah imisa ilaahay amraad uga dul qaada dad jirana imisa ilaahay ku anfacay ولذلك الإمام الشوكاني بدر الطالع وحو كسو قورنا هي قصة عجيبة قصة سوحي أهيد نمبا وحو لها بارير وحانا كل حيال عيل كاس بيرتا كل حيال بيرتا سكور ورابية مساجد بو ماشي كدس مساجد أيوب دس dad badan oo sidaas ma leh masaajidku habeenkii wuxuu soo qaadaa masaajidka la soo aadaa faynuusti oo masaajidka ku iftiimin lahaa iyo cashadii ayuu soo qaataa masaajidku soo dhexdhiga hadduu dad ay yimaadaan masaajidka way la tukadaan cashadana waa siiya hadduu dad waayo cishihiisu iska tukadaayo salaadiisa cashadiina asaga cuna gurigu iskaga soo laabta dhaqankaas ula faynuusti iyo cashadii buu isla soo qaadaa maalintii dambe
ayuu wuxuu damcay ceelkii oo guray oo biyo yareeyay in la qodo asaga iyo wiilashiisa ceelkii bay qodid ku bilaabeen aabihii baa hoos jira ceelkii meel kasta waa iskaga soo dumay gabigiisiiba ilmihii waxay isku dayeen inay ceelkii qodaan oo aabba ka balraadiyaan oo badbaadiyaan waxa u soo baxday inaan waxba laga qaban karin ceelkaas inuu dumay waxay uga tageen oo yiraahdeen qabrigiisii baa ilaahay ka dhigay naga wado sidii bay iskaga daayeen 6 sano ka bacdi ayay qabrigii qodeen ayagoo oranaya ceelkii aan bal fiirino ayay meel kale geesa ka qodeen waxay ugu tageen aabbe oo nool ayay meeshii ugu tageen way yaabeen soo bixiyeen bal waran bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan ceelku dumay meel yar oo god ah baan galay soo dumay waxaa isku kay gooyey dhagax weyn baa fuulay iridii meeshaasaa wixii soo dumay oo dhan iga badbaadiso aan ku jiro ilaahay iga badbaadiyey anoo mugdiga ugu weyn adduunyada mugdi la maro ku sugan ayaa waxaa ii soo galay faynuustii iyo cunadii aan qaadi jiray oo isla socda ii soo galay faynuustii baa ii timaada iftiinkaas baan helaa cunadii aan qaadi jirayna meeshii bay igu timaada cunadaydaan iska cunaa faynuusteedana waa iftiinsadaa intaasaan halkan ku soo mooday oo ku jira qofka adduunyadan jooga sadaqada uu la baxayaa cajaa'ib bay leedahay aad iyo aad nuucyaala oo u kala duwan ahlu cilmiguna in badan ay soo guuriyaan cajaa'ib dhacda adduunyada markuu joogay hadda waxay uga tala galeen nin dhintay laakiin nuxurkii uu samayn jiro khayrkii uu samayn jiray intuu sadaqa qaada maalin walba masaajidka uu geynayo iyo faynuustii iftiinka uu ku nuurinayo beydka ilaahay ayaa loogu nuuriyay mugdiga inta leeg asagoo ku jira ilmihiisina ay ka quusteen ayaa halka loogu iftiimiyay qofku marka nacfiga uu leeyahay oo khalqiga uu leeyahay marnaba waayi maayo waa helaya ilaahayna subhanahu wa ta'ala uu siinaya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين